السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقايها يقدرين تمدن سودا وادا وولاشين فرحية بلان كوكين كسودا وادا channel كينا فضلا هدان نقول عصبتاي سبسكرايب دقن بلاي الكفرو هدا هوري نولا تشوكتين واكو ما سنتاي لتشوكاغا وحان كاعدسانا يا فيديوغان هدي إذن عجب قليا إنا الله قريسان أصحابتينا لو وداكتان سي شير قريسان كومنتين أصوب حسان إن شاء الله فيديوغان أو تشدان يسودو وحان كسمي إلى الدعوة أصحابتي دقاليغا سودا وادا دمانتينا walaalahayga qaaligaas u jeedaanba halka waxaan ku haystaa nus kiilo oo kalluun ah nus kiilo kalluun ah iyo chipsi ama baradho aan soo diyaariyay iyo spiceski aan ku qurxin lahayn ama ku macaaneyn lahayn okay saasaan u soo jarjaray kalluunka u jeedaan walaalahayga qaaliga ma sha Allah tabarakallah chipsidan waa taas sida dhudhubka ayaan u soo jaray halkaasna waxa inoo yaala spices keeni ayaa noo yaala ama xawaajiyadii aan kalluunka ku carfin lahayn ama ku hagaajin lahayn hadii Ilaahay yiraahdo ma sha Allah tabarakallah kalluunka ma raba inaan shiilo oo saliid ku dhexrido sida aan u sameeynayo waa ila arki doontiin walaalahayga qaaliga inaan dubo ayaan rabaa insha Allah qaabka u dubayana si yaro fudud insha Allah iyo waxa aan ku dubaayo ila soo arka ma rabo toos inaan saliid u dhexgeliyo laakiin meeshan saliid ka dhexgelin lahaa si saliidi ka fudud yaa baan u sameeynaa insha Allah hadda waxaan diyaarinaynaa inaan xawaajiyadii isdhexgelino xawaajiyadii dhameystiran iyo maxal daa cusbadoodii waxoodii dhan halkaas iigu jireen waa isdhexgeli ka bacdi waxaan ku darsanayaa soya sauce yar ayaan ku dhibcinayaa hal qaado soya sauce ayaan ku daray walaalahayga qaaliga sidoo kale insha Allah hadda waxaan ku dhibcsanayaa saliid ayaan ku darayaa saliid laba qaado ayaan ku darayaa laba qaado buuxbuuxda xitaa maahan intaas is dhexgelinayna ka bacdina si xogaa dareeran ugu noqoto ama noogu jilicdo maadaama rabna inaan kalluunka wada gaarsiino wax yar oo biyo ayaan ku dhibcinaynaa insha Allah si xawaajiyada iskugu qasmaan wax yar biyo yuusa ka noqonin marka biyaha ku darsanaysid tartiibtaada is dhexgelinaynaa hadda si fiican ayaan xawaajiyada iyo cusbada iyo waxa oo dhan isku dhexgelinaynaa wali waa adag yahay moodaa wax yar oo biyo ayaan ku soo dhibciyay biyo inuu ka noqdo oo hadhow uu kalluunka ku qaban waayana lama rabo walaalahayga waa ila fahmaysan yani waxa la rabaa wax oo qabsan kara kalluunka qabsan kara oo aan ka daadaadanayn inuu noqdo hadda waa kaasa ma sha Allah waa kaasa waa u jeedaan biyana maahan xoogay jileecna waayahay bas hadda waa diyaar kalluunka ayaa ku soo guraynaa oo ku gadgadinaynaa kalluunka ayaan ku guraynaa okay asxaabta saasa ugu gadgadinaysaa waa wada gaarsiinaysaa xawaajiyada iyo cusbada iyo waxa oo dhan waa wada gaarsiinaysaa asagoo dhan saasa u marmarinaysaa midba marba soo qabanaysaa saasa ugu gadgadinaysaa si uu u wada gaadho carafta iyo dhanaanka iyo waxa oo dhan ay u wada gaaraan insha Allah si fiican baa u marmarinaysaa meel kasta inaa ka marisay waa iska hubine tartiibtaada
okay asxaabteyda gidi waa wada gaarsiiyey saa u jeedaanba hadda waa diyaar insha Allah hadda waa wada diyaar gidigiis waa wada gaarsiiyey waa hubiyey inaa wada gaarsiiyey saasa u wada gaarsiinaysaa dhinac walba ma sha Allah okay asxaabta waxaan sameynaynaa hadda in yar intuu ma taqaan xawaajiyadu gudaha ka sii galayaan jibsida ayaa hormarinaynaa jibsida ayaan soo shiilanaynaa insha Allah ila socda jibsida marka cusbo yar baan ku daadinayaa jibsi waa wada garanaynaa sida loo sameeyo si ka duwan sida loo sameeyo uma sameynaayo cusbo le marmarinaynaa ka bacdina waa shiilaynaa cusbada le wada gaarsiinaynaa insha Allah okay asxaabteeda waa tanaa saliidina waa noo karkartay waana kusoo guranay jibsidii asxaabta saasa ugu soo guraynaa insha Allah digaag baa agteyda ka qaylinaya guriga digaag baa ku nool xaafada qaybta hoose digaag lagu dhaqaa marka daa sharqan iyo digaag iyo qaylo maqlaysiin raali ahada asxaabteyda okay asxaabta u jeedaan hadda diyaar ay ku dhowdahay shabaqaas rabaa inaan ku guro insha Allah say saliid iyo waxaas ay uga baxdo hadda waa ka gurayaa walaalahayga qaaliga asxaabteyda waa ka soo wada guray jibsida halkaas diyaar noogu noqotay mar kale ayaa maqligii dabka soo saartay waxaan marinayaa oo ku ridayaa blue baan yar baan ku ridanayaa walaalahayga qaaliga saa u jeedaanba saliid ma raba inaan ku dubo waxaan ku dubayaa blue baan-kaas intaa yar oo blue baan-ka markuu dhalaalo ayaan kalluunkana aan soo saaraya insha Allah waa kaasaa blue baan ama subaga fadhiya hadda way noo dhalaalay marka waxaan kusoo guranaynaa kalluunka ayaan kusoo guranaynaa kalluunkeeni waa kana inoo diyaar waa soo saaraynaa laba jeer aan ka kala dhigayaa hal mar ima wada qaado asxaabta saas ku shiilmaya markuu dhinac uu ka shiilmo dhinac kale ayaan u gadinaynaa insha Allah geeska kale xabad kaga soo daray asxaabay hadda waa ku soo noqday ma sha Allah waa u jeedaan soo hoosti uga gudutay soo maaha hoosti soo uga gudutay waa u jeedaan ma sha Allah yaa carafta iyo soo carfaayana kalluunkan saan loo sameeyo waxaan soo xasuustaa kalluun lagu sameyn jiray gaalkacyo habeenkii inta badan jidadka meelaha ah oo dadku inta badan ku badan yihiin baa lagu sameyn jiray caraftiisa xagee ka soo raacaysa waa la gadgadin jiray saan oo kale loo jirjiri jiray saan oo kalena waa loo dubi jiray
wax ka macaan oo ka caraf badan. Marka hadda kan kalluunka marka saa u sameysanayo ilaahay markis mar walba waxa igu soo dhacda kalluunka gaalkacyo marka ardada ahayn aan ka gadan jirnay jidadka intii saan oo kale loo soo dubo aa lagu gadi jiray meelaha dadku ku badan yihiin aad u macaana. marka ardada marka ahay waa anigu ku xisaabtami jiray aad aan u jeclaa waa gadan jiray yaa hadda laakiin guriga aan ku sameystaa Soomaa ka noolow way ka noolow biyo sacbadaada looga dhargaa maqli jirteen asxaabta waa kana saan u wada gudutay ma sha Allah bas way waa ka guraynaa qaybtii kale ayaan ku soo guraynaa ka asxaabta wax yar oo blue baan ku kordhisanaya qaybta labaad waa ku soo gurayaa waa qaybtii u dambeysay walaalahayga waa ka saa qaybtii u dambeysayna ma sha Allah dabkana saaid ha u dheerayn suusan durbaba u guduudana u gubanin asagoo dhexdi ceerinka ah dabka meel dhaxa uga dhigaysa waa gaabinay waa kaas asaas u guduudtay waa rogrogaynaa ما شاء الله ما شاء الله دينا كلا مركو كغدوتنا waa ka guraynaa insha Allah asxaabteeda waa kana labadii dhinac basaas uga wada gudutay ma sha Allah waa ka wada guraynaa marka hadda waa diyaar ma sha Allah هاكا asxaabteeda qaaliga waa kana kalluunkeeni iyo jibsideeni ma sha Allah tabarakallah sidaan quruxda badan ay ku soo baxday aa u jeedaan walaalahayga qaaliga waxba laga ma qaban karo waxaan ku yiri hawshan waxa weeye in la cuno leh u baahan tahay alaabtaan in la cuno bas u baahan tahay hadal iyo hugun kale ay karaysa ma jirto ma sha Allah tabarakallah asxaabteeda waa rajeynaya inaa ka wada hesheen ka wada faa'iideen insha Allah وكاسا chicken كاننا محل ده sorry chicken كأنا جعل مقتين chicken هذا إنه كسو خلخل ده حتى ما أجي إنا صائر إيري إسكر على هذا كلون كاني وكاسا سحبت نساس دياري هاي يا chips دينا واتاسا كشبت هذا كعنسا يا أما ميونيز أما حاج عشاي أما مستر يا وحكستا أديك عشاي ده معاك عشاي ده دناك عشاي أو إيجا هرارتي بمستر marka walaalahayga qaaliga ma sha Allah tabarakallah waa kaasa sida quruxda badan ay ku soo baxday asxaabteeda qaaliga waxay idin ka codsanayaa hadii aad ka hesheen videogan ina share gareysaan like gareysaan commentiga asxaabteeda soo albaabka la igu soo garaacay marka raali ahaada walaalahayga qaaliga waxay idin leeyahay please hadaa nagu cusub tahay subscribe noo saar gambaleelka furo si video kastaan soo galiyo uu kugu soo dhaco hadaa hore noola joogtay like de commentiga dhiirigelinta waa xaqiina share da asxaabtaada la wadaag si ay walaalaheena kalena ay uga faa'iideystaan dhamaantiin waxa idin rajaynayaa caafimaad bashbash barwaaqo waxa idin leeyahay mar walba ku xirnaada farxiya bilan cooking walaalahayga qaaliga ah aad iyo aad baa idin jecelahay sida wanaagsan ay la socotaan mar walba waa idin kaga mahadcelinayaa wixii subscribe wixii like wixii share adinka idin dhaafay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh